nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu inooga sii warramay waxyaalo fara badan oo imaan doona iyo isbedel adduunka ku dhici doona talooyin badanna waa ina siiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo sidii looga badbaadi lahaa xaaladahaasi markay yimaadaan waxa kamid ah xadiista oo arrimaha kaga warramay xadiidu soo saaray al-Imam Ahmad fi al-Musnad طبراني وكسو صار في المعجم الكبير وحلقه ورنا يلين هذا عليم تابعيه عليم ميل سطحي وسنق ميل قران صارنين بو يري waxaana nala joogay nin kamid ah saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkaasi waa Aabis al-Ghifari ninkii la dhigi jiray saxaabiga ahaa ninkaas nala joogay buu ninkii wuxuu yiri xilli waxay ahayd uu daacuun dhacayo oo dadku baaba'ayaan oo daacuun loo rogmanayo in badani tageen in khatar ku jiraan xaaladda iyada abaa wuxuu yiri daacuunow idil iqaad adduunka idhaafi markaas waxaan ku yiri Culaym baa dhahaya maxaad saa u leedahay Caabisow maxaad soo habaaraysaa soo nabigeenu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam midkiin yuusan geerida tamaninin yuusan geerida dalbanin yuusan geeri codsanin maxay yeelay geeridu maxay keenaysaa geeridu waxay keenaysaa wixii wanaageed samayn lahaydna waa afjaraysaa dambigaad ka toobad keeni lahaydna jaaniskiisii bay ku seejinaysaa sidaas daraadeed lagu soo celin maaye geeriha dalbanin maalmaha aad nooshahay sii joogtaa ku fiican oo hadda dambi ku jirtana jaanisad ku toobad keentay inaad heshaa dhici karta hadii aad wanaag ku jirtana wanaagu baad sii siyaasana maxaad geeri u dalbanaysaa markaas wuxuu yiri rasuulkaan maqlay sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya lix arrimood intaynan imaanin acmaasha u degdega riwaayad kale waxay leedahay geerida u degdega lix arrimood intaysan idinku imaanin بمعنى وحوي لحداسي هدي مادان روحي وناق سميني إيا وناقي هلس بو قلي أعماشي اللي سميني إيا خيركي عريري بدن بو روحي قلي وحا إيماني وحيالا فربضان وكهر استاقيا وحيالا فربضان باتشيدانيا وناقي كهر استاقيا وكعلينيا انتينان إيمانين geeri dalbada ama geeri u degdega ama amalka saalixa u degdega labada riwaayada waa jiraan lixda arrimood maxay yihiin waa lix arrimood oo nabigu ummadiisa uga baqay sallallahu alayhi wasallam waa lix arrimood oo ku tusaya markay dhacaan qiyaamadu inay soo dhowdo adduunku gabagabaye waa lix arrimood oo tilmaamaya markay dhacaan in zamanku fasaaday oo xaalad halis lagu jiro sidaas daraadeed in loo degdego wixii wanaag iyo khayr ah xaaladaasi markay timaado midda koobaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadka wax magaradka ah oo madax noqda xilkii muslimiinta oo wax magarad la wareegaan dad aqli yar oo garasho yar oo garaad yar oo aan xikmad lahayn diin iyada meel iska dhige ayaa xilka muslimiinta la wareegi doona aad u fudud oo fudayd badan ku jiro aqligooduna kala dhimaye واتن هذا جرت وقت ورا يصوب اللابت لكن مالين كستا أو قيامه صور دواتو أرنتاسي واسية كانيسا حلك مسلمين تنوحوا أسي جورا يعني نبنيكو كسيليتو سيد غالب كواساس لأن سيد النبي قال نكسر صلوات ربي والسلام على الزمن متشرو إلا متك كدم بيا كشر بدن زمن متشرو إلا كدم بيا كلبات بدن marka wax way xilkii muslimiinta oo sufaha iyo wax magarad gacanta u galay ruuxan aqli lahayn hadii xilka lagu dhiibo oo dawladii uu ku qabto awoodda qabsado muxuu sameeynaya inuu wax burburiyo oo dadka isku laayo inuu umada meel xun u jiheediyo inuu khayraadkeeda iyo masaalixdeeda ku ciyaaro inuu muxuu ahaay gaalo u gacan geliyo inuu adduunkeeda iyo aakhiradeedaba ku ciyaaro nabigeenu sallallahu alayhi wasallam taas uu horreysiyay laana wax weeye madaxdu haddii ilaahay ummad u khayr la rabo wanaag la rabo madaxdu u hagaajiyaa madaxdu hadday hagaagtana adoomada iyo dhulkuba waa hagaagaan
haddii madaxdu hallowdo oo ka kharibanta mujtamacaasi halaag baa lala maaganya waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaaha tadmiira haddaad rabto ummad meelay ku socoto madaxdeedaa la fiiriyaa madaxun marka lagugu sallidaaye adduunkaaga halis buu ku jiraa aakhiraduna in raacdaa dhici karto nabigeennu sal alla alay wasalam taa waa tilmaamay imaaratu sufahaa waxayna ku imaanaysaa xilka muslimiinta oo loo dhiibo loo gacangeliya ama qabsado ciddii istaahishay cid aan ahayn leanna xilka muslimiinta laguma qaato dhalasho laguma qaato qaraabanimo laguma qaato waxaa lagu qaataa ama lagu qabtaa dadnimo ruuxa diintiisa akhlaaqdiisa caqligiisa aqoontiisa xikmaddiisa ammaanadiisa ayaa lagu qabtaa markayse noqoto annagu naga dhashay hadduu naga dhashayna waa inuu xilka qabto xataa ninka ugu xunba ha noqdee markaa way markay adduunya fasaaday imaaratu sufahaa qodobka labaad ee nabigeennu sal alla alay wasalam ka dayriyey waxa weeye wuxuu rasuulku yuri sal alla alay slam kathratu shurad qolyaha madaxda caawiya ee u kaalmeeya ee dulmiga ugu kaalmeeyaa badanaya u fiirso ninku markuu kursiga ku fadhiyo xilka hayo dadka intooda badanba kaalmay u yihiin dulmigay ku garab taagan yihiin imise hay-adood buu samaystay oo dulmiga ku garab istaagaya xaggan waa booliis xaggan waa sirdoon xaggan waa ciidan xaggan waa hay-ado kala duwan kulli waxay ku garab taagan yihiin kursigiisaas xataa haddii dalka dhan iyo kursigiisu isqabto kursigiisaa lala jiraa isagaa loo yahay kaalmo loo yahay waa midda labaadee siday culimmadu xadiidka ku fasirayaan waxaa badanaya dulmigaa faafayo adduunka wada gaadhayo meel walba gelaya markaasaa dadkii oo dulmi sheeganaya oo soo cararay oo garsoor raadinaya ayaa iridaha maxkamadaha iyo dowladda buuxinaya kuwii marka garab taagnaa madaxda baa aad u badanaya kuwaas caawinaya ayaa badanaya maxaa yeelay dulmigii baa batay nabigeennuna waa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dulmigaasi inuu sii siyaadi doono ilaa adduunka oo dhan dulmigu qabsado allana aakhiru zamaanka tabaaraka wa tacaala uu soo saaro nin nebi maxamed haybtiisa lahoo ku abtirsada oo hal waqti aad u kooban ilaahay sabab uga dhigi doono tabaaraka wa tacaala inuu adduunka dulmiga ka rogo oo cadaalad ku soo celiyo ilaa laga gaadhayo adduunku dulmigaasi maxaa yeelay isagoo dhan intiisa badan wuxuu u gacan galay addoommada ilaahay kuwii ugu dulmi badnaa oo gaala oo ilaahay xaqiisa dulmiyey inta kaleetana waa tabac sida loo badan yahay marka waxa weeye acwaan u kaalmeeya dulmiga qodobka saddexaad ee nabigeennu ka dayriyey sal alla alay wasalam waxa weeye imaan doona xukunka iyo xilka oo la kala iibsado say ku dhacaysaa waa laaluushka waa fasaadka kii kursiga rabay maanta ninkii jaga rabaay lacag la-aan ma helayo ama kursi sare ha noqdo ama mid hoose ha noqdo garsoorihii maxkamadda fadhiyey ninkii lacag le buu u goynayaa garta u goynayaa miskiinkii waxba ma heli karo laakiin ninka gacantiiyo jeebka ka hadli karaa mar walba iskale garta adduunkaasaan joognaa ninkii looyarka ahaa ama wakiilkii xaqa u doodi lahaa asaguna wuxuu ku leeyahay anigaa dhicinaya waxaad rabtee lacagta isii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa sii sheegay rabbigii baana u sheegay oo adduunka waxaa imaan doonaya wixii tegayba ka warhaya allah baa u warramay sidaasuuna nebiguna ugu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh siduu u sheegay bayna wax u dhacayaan xukumkoo la kala iibsado war xilka lama kala gato laaluushna laguma bixiyo ruuxa akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo ammaanadiisa iyo caqligiisa iyo kartidiisa lagu bixiyaa ninkii lacag ku qaatayna waa daalim ilaahay xadhiggiisa ka furtay ninka bixiyey ee siiyeyna waa daalim ugu kaalmeeyey dulmiga iyo xadgudubka masaalixdii muslimiinta iyo xilkooda in la iibsado xataa meelaha ugu hooseeya haddaad rabto lacag bixi lacag bixiyaa bixinaya isagii baa bixinaya shacabkii baa qaadanaya baarlamaankii baa qaadanaya xubnihii baa qaadanaya leanna wax weeyaan wixii waa fasaadeen meeshii loogu talagalay waa ka baxeen xugum la iibsan doono buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qodobka afraad ee nebigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax weeye
dhiigga oo la fududaysan doono daadinta dhiigga ilaahay xarimay oo aad u cusleeyay oo adkeeyay oo macsuum ka ahaa oo ama iimaan macsuum ku ah ama amaan macsuum ku ah waa muslim wax lagu dilo muusan gelin waa gaal ballan lagula jiro lagu wada nool yahay wada noolaansho ay ka dhaxaysa muslimiinta oo dhiiggiisu usan bannaanayn dadka noocaasa layntooda ayaa badan doonta buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa dhiigga si fudud loo daadiyo bal adduunka maanta waxa ka socda fiiriya xagga fiiri oo maxaa loo dilayaa war dadka maxaa loo laynayaa war maxaa la isu dilayaa war dagaaladan ahliga maxay u socdaan war dhiigga daadanaya muxuu ku salaysan yahay ka dilaya ma oga wuxuu u dilayo ka la dilayana wax loo dilay ma oga sida nabigeenu warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa uu dhiiggii halkaa ilaahay geeyey ee wax ilaahay xarimo tawxiidka marka shirkiga marka laga yimaado wax ilaahay xaraameeyo dhiig baa ugu weyn uguna halisan maanta wuxuu noqday kaneeca aad bajuujisood gacanta ku qabato waxaa ka fudud dhiig macsuum oo la daadiyo adduunku halkaasuu marayaa lagana badbaadin qabiil baa lagu daadin ree hebel baa lagu daadin gobol hebel baa la difaaci baa lagu daadin diin magaceed baa lagu daadin dhiiggii wuxuu noqday wax aad u sahlan oo biyo la kabanaya ka sahlan nebi maxamed baa sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu istighfaafan bidam dhiigoo la fududaysto xaaladda taagan waa qodobka xigee u dambeeya nabigeenu tilmaamay waxa weeye sal alla alay wasalam waa dad jiil iyo generation iyo dad imaan doona oo qur'aanka beddelkii macnihiisa ay raadin lahaayeen qur'aanka alfaadiisa keliya danaynaya kuwa waxay samaysanayaan qur'aanka ugu heesa sida xadiid ku imaanay wey yughanniyahum bilqur'aan qur'aanka akhrintiisuu ugu heesaya qur'aanka laguma heesee waxa laga wadaa xadiidku macnihiisu yahay bimacnaa waxa weeyaan sawdkii iyo laxnigii heesaha ayuu qur'aanka gelinayaa markaasuu xuruuftii ka saarayaa meeshoodii calashaani maqsuudkiisu waa inuu codka qurxiyo oo dadka soo jiito oo lasoo raaco waa dadka meesha joogiya mujtamaca wakhtigaa la nool laftoodu fikraday la qabaan isaga keligii ma ah kan qur-aanka akhrinaya keligii ma ah hadday damcaan in la tujiyo buu nebigu sal alla alay wasalam midkay hormarinayaanna tuji leeyihiin oy salaada ku hormarinayaan waa midka يعني وحوي عدكي سآد قرحنيا هبن نقض ابن النبي صلى الله عليه وسلم مدك فقهي يفهم كقرآن كأقول لي تابع هذا اسمه ويدينا يا والروح عن القرآن كما قرنيا مقصود كدتك قرآن كأخرنا ينوح النقض عدك قرحي معناها فهم معه مجتمعي لنا ولا نوح النقض عد قرحسن إلا الرادية معنيه معها إلى هنا وحوسه دشي سان خطبتي هرك هذا اللي وحوسه دشي معناها إلا فهمه والفاظ كمهم سن الفاظ هو مهم لكن القرآن الكريم كنا وهذا مهم لكن الفاظ هي معناها أي سي مهم سن إلا فهم القرآن الكريم لأن الفاظني معاني ده أي حنبار سن طيبة مقصود كنولش صامين كله مركب وحوي حالة ده هذا شرطه مركب أوفير ستو ضد كأني القرآن كبرتي دلني يردي القرآن كينو برات بقول كيف سجاشن يشن كبدا القرآن كمعني يسمى يقانان ما ندنينا يعني ما بدنينا يعني وحينه كم قيهنا مرة ميس وهنين قارئ أو صوت قرحسن صوت كقرحسن يدتك وكنت تجينا يلقوه أرمرينا يو إما حافيش اللقوه كرامينا يو إنت سومو ذي إن مقصود كي قرآن كبيه هاي هل كاسونا كو إكيستو دن كلام ماله مجتمعين وحد أركيس حفلة ده وين waxaad arkaysaa dad aad loo raacsan yahay oo quraanka markay akhrinayaan alxaanti heesaha ku akhrinaya oo la weyneynayo maxaa lagu weyneynayaa kaliya tawxiid quruxsan yahay warsaas ma hatta haduusan waxba ka fahmaynin ama fahamka diintii quraanku ku yariya kaasa la hormarinaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa tan maanta jirta iyadana waa xaaladda hadda taagan war aaway quraanka macnihiisii حلقي صحابتي سلف رضوان الله عليهم ضدك قرآن كحفظ ويراين لكن فهم كقرآن كيكسناين هكذا بدنا ذي لكن قدر معين قرآن كفهم كيسا يكسناين باكرة قرآن كفهم كيسا أصله معناه لقانا أصله إن مركي الآخرين يوضع آخرين يساعد فهمتها أصله ساس درادت با أثر كوحاكوي من عبد الله المسعودي غير كي
waqtigii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qur-aanka waxay uga qaadan jireen 10 aayadood baan qaadan jirnay bay dheh 10ka aayadood baa waxaan baran jirnay akhrintooda macnahooda waa ku dhaqmi jirnay marka kadib baan 10 kala qaadan jirnay sidoo kale macnahooda ku dhaqankooda akhrintooda haddana 10 kala qaadan jirnay sidaas waxaan ku baranay bay dheen qur-aanka akhriskiisii carabayna ahayeen asal ahaan fahamkiisii iyo fiqigii qur-aanka ku jiray iyo dhaqankiisii baan hal mar wada qaadanay dheen sidaas daraadeed baa culimada qaar ka mid ah culimadii sunnadu waxay leeyihiin bidcooyinka gadaal ka yimid ummadda gadaal kaga soo biiray waxa ka mid ah in qur-aanka lafdigiisa bas xooga la saaro oo macnihii qur-aanka aan la danaynin waa bidc gadaal ka yimid oo khilaafsan hadigii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii salafka waana tan maanta aan la noolahay way walaw muslimiintu maanta ay macnaha qur-aanka macnihiisa xooga saari lahaayeen noloshooda isbedel badan baa ka muuqan lahayd lixdaasi khayrka iyo taacada uga degdega buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi geerida u degdegana waa riwaayad macnaha waxa laga wadaa intaasi markay dhacaan xaaladahaasi markay yimaadaan halis baad ku jirtaan akhradiniba halis ku jirta diintiniba halis ku jirta amalkii saalix ee janna aad ku gali lahaydeen baa halis ku jira taxadar ziyaada dadaal ziyaada ya is-ilaalin ziyaada jihdi ziyaada inaad la timaadaan baa la doonayaa intuba waa ina haysataa zaman kasta oo dib ka yimaadiya waqtiga inaga dambeeyana waa ka sii dari doontaa waxay nabigeena wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeya ka shar badan xaaladu waa sii halaabi sidaas daraadeed khayrka ha loo degdego wanaagana ha loo degdego xaalad culus baynu maraynaa oo fitan iyo imtixaanaad iyo waxba ina haysta masaa'ib baa ina haysatay khayrka ha lagu cararo xagga allana ha loo cararo sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'ani as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin